بسم الله الرحمن الرحيم golaha wadatashiga qaranka waxay shir isugu yimaadeen 22 ilaa 22 August magaalada Muqdisho shirka ayaa waxa uu daba socday laguna dhameystirayay qodobadii ka soo baxay iyo habraacyadii lagu gaaray shirkii 29 June 2022 shirka ayaa waxa shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ujeedadiisu ahayd joogteynta kulamada golaha iyo dhameystirka go'aanada shirkii 29 June ee lagu soo gabagabay magaalada Muqdisho gaar ahaan dhameystirka habraacyada doorashada iyo golaha wadatashiga qaranku wuxuu saaran yahay ayaa waxa looga hadlay qodobada soo socda xaaladda guud ee dalka ee dhinacyada amniga xaaladda bani aadminimo iyo qabsoomidda doorashada dalka warbixin heerka hirgelinta heshiisyada doorashada horumarka laga gaaray dib u heshiisiinta gobolka Gado arrimaha doorashada Somaliland iyo doorashada aqalka sare 3 dhameystirka iyo shaacinta habraacyada doorashada golaha shacabka habraaca dhiirigelinta daahfurnaanta doorashada habraaca maamulka maaliyadda doorashada habraaca xulista ergada doorashada habraaca amniga doorashada habraaca ilaalinta qoondada haweenka habraaca doorashada xildhibaanada aqalka sare ee Somaliland howlaha la taliyaasha farsamo ee golaha wadatashiga qaran 4 miisaaniyadda doorashada iyo dhaqaale u raadinta qarashaadka doorashada ee aan weli loo haynin dhaqaalahooda habraacyada lagu heshiiyey si waafaqsan heshiiskii 17 September 2020 habraacyada 1 October 2020 iyo heshiiskii 27 May 2021 wadatashi iyo falanqayn kadib golaha wadatashiga qaran waxay isku raaceen qodobada soo socda 1 habraaca maamulka maaliyadda doorashada 2021 hanaanka maareynta miisaaniyadda doorashada waxaa loo marayaa habraaca soo socda dhismaha guddiga maamulka maaliyadda doorashada oo ka kooban guddiyada doorashada ee heer dowladda federaalka Soomaaliya heer dowlad goboleed iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha furitaanka xisaab bangiyeed gaar ahaan maamulka maaliyadeed ee doorashada single treasury account si waafaqsan miisaaniyadda doorashada waxaa guddiga maamulka maaliyadda doorashada ay dejinayaan qoondada qarashaadka doorashada ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya qarashaadka doorashada waa in lagu bixiyaa 15 maalmood gudahood marka la soo dalbado qarash bixinta si waafaqsan shuruucda maamulka iyo maaliyadda dalka habraaca xulidda ergooyinka doorashada ergada doorashooyinka oo ka kooban 101 ergo waxaa dooranaya golaha shacabka waxaana soo xulaya duubabka nabadoonnada ka diiwaan gashan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo bulshada rayidka oo ka wada tirsan qabiilka ama jufooyinka wadaaga kursiga waxaana hubinaya guddiga doorashada ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ergada Banaadir iyo Somaliland ee ka codeynaya Muqdisho waxaa soo xulaya duubabka nabadoonnada iyo bulshada rayidka oo ka wada tirsan qabiilka ama jufooyinka wadaaga kursiga ee la isla ogol yahay waxaana hubinaya guddiga maamulka doorashada Somaliland iyo Banaadir waxaana kor joogteynaya xafiiska ra'iisul wasaaraha liiska ergada kursi kasta waa in ay ugu jiraan ugu yaraan 30% haween xubnaha bulshada rayidka ee kamid ah xubnaha xulista ergada waxaa soo xulaya guddiga doorashada ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka xubnaha bulshada rayidka ee ka qayb qaadanaya xulista ergada waxay ka kala imanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada xubin kasta oo kamid ah xubnaha xulitaanka ergada kama tirsanaan karaan guddi xulis ergada kursi kale marka laga reebo jufooyinka wadaaga ergada xubin kasta oo ka tirsan xubnaha xulitaanka ergada ma noqon karo ergo ama musharax doorashada u tartama xubnaha xulitaanka ergada waa ay soo xuli karaan ergada doorashada si waafaqsan hanaanka ee qaybsiga doorashada 2016 oo laba jibaaran ama si kale oo ay heshiis ku yihiin kooramka codbixinta ergada waxa uu ansax noqonayaa marka ay joogaan ugu yaraan 3 meelood 2 meel oo erga ah 2/3
j si loo hubiyo hufnaanta amniga iyo sugnaanta ergada liiska ergada ee kursi kasta waxaa hubinaya guddi hoosaadka amniga ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka si looga hortago faragelinta argagixisada iyaga oo ka hubinaya hay-adaha dambi baarista iyo xasilooni darrada amni ee doorashada sidoo kale kuraasta somalilan iyo banaadirga waxaa hubinaya hay-adaha amniga waxaana korjoogtaynaya xafiiska ra-iisul wasaaraha habraaca amniga ee doorashada si waafaqsan heshiiskii 27kii May waxaa la go'aamiyey in la abuuro guddiga amniga doorashada oo ka kooban 10 xubnood oo kale ah 1 ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya 2 taliyaha booliska Soomaaliyeed 3 taliyaha booliska Puntland 4 taliyaha booliska Jubbaland 5 taliyaha booliska Koonfur Galbeed 6 taliyaha booliska Galmudug 7 taliyaha booliska Hirshabeelle 8 taliyaha booliska Unsom 9 taliyaha booliska Amisom 10 xogayaha amniga ee guddiga doorashada ee heer federaal xogayaha amniga ee guddiga doorashada ee heer federaal ee heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ayaa ka mid noqonaya guddiga amniga doorashada ee heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka b in la diyaariyo ciidan amni oo doorashada ee dhammaan goobaha ay ka dhacayso doorashada gaar ahaan goobaha lagu dooranayo kuraasta Somaliland banaadiriga guddoonka labada aqal ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si golaha wada tashiga qaran waxa uu farayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada amniga labada heer in aysan ku milmin faragelinna ku samaynin arrimaha siyaasadda iyo hirgelinta doorashada d in guddiga amniga doorashada ay golaha wada tashiga qaran siiyaan warbixin joogto ah c howlaha hor yaalla guddiga amniga doorashada 1 hirgelinta guddiga amniga doorashada 2 diyaarinta qorshaha howlgalka iyo miisaaniyadda amniga doorashada election security budget and operational plan 3 golaha wadatashiga qaran ayaa ansixinaya qorshaha howlgalka amniga doorashada 4 diyaarinta tababarista guddi hoosaadka amniga doorashada iyo ciidamada ammaanka ee ilaalinaya doorashada ee labada heer ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya 5 kormeeridda amniga ee goobaha doorashada d khidmadda warqadda dambi la'aanta ee musharaxiinta iyo ergada khidmada warqadda dambi la'aanta ee musharaxa waa $750 dumarka musharaxiinta waxay bixinayaan kala bar khidmadii musharaxiinta iyadoo la raacayo heshiiskii golaha wada tashiga qaranka b khidmadda warqadda dambi la'aanta ee ergada waa $30 4 hindisaha habraaca xaqiijinta kootada haweenka 30% ee baarlamaanka golaha wada tashiga qaranka ayaa mas'uul ka ah hanaanka ilaalinta iyo xaqiijinta qoondada haweenka b iyada oo laga duulayo heshiisyadii doorashadii iyo ilaalinta qoondada haweenka madaxda dowladaha ka ah xubnaha dowladda federaalka Soomaaliya oo gacan ka helaya guddiga doorashada ee heer federaal dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa go'aaminaya asteynta kuraasta haweenka kaliya in ay u tartamaan c go'aaminta kuraasta gobolka Banaadir iyo Somaliland ee loo asteeyo haweenka waxaa iska leh siyad oo la tashanaya ra'iisul wasaaraha d ugu yaraan 30% ergada doorashadu waa inay noqdaan haween e waxaa khidmadda musharaxiinta haweenka laga dhimay 5% f ra'iisul wasaaraha waxa uu magacaabay guddi samadoonna ah oo u ololeeya qoondada haweenka dhiirigeliyana ka qaybgalkooda hanaanka doorashada 5 hindisaha daahfurnaanta doorashada 2021 golaha wada tashiga qaranka iyaga oo fulinaya heshiisyadii doorashada iyo habraacyadii ayaa waxay isku raaceen mabaadi'da daahfurnaanta doorashada 2021 in dhammaan inta shaqada ku leh hawsha doorashada 2021 ay ansixiyaan habdhaqanka anshaxa doorashada b guddiga doorashada ee heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ayaa shaacinaya liiska musharaxiinta kuraasta doorashada iyo xilliga doorashada iyadoo oo lala wadaagayo bulshada ogeysiinna la siinayo guddiga hirgelinta doorashada ee heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka ka hor 48 saacadood c waa in guddiga doorashada ee heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ama siid ay qeexaan muddada ku dhawaaqista natiijada kama dambaysta ah taariikhda u gudbinta cabashooyinka doorashada guddiga xalinta khilaafaadka doorashada iyo muddo xalinta cabashooyinka d in daabacaadda warqadaha codbixinta lagu sameeyo dalka gudihiisa si looga gaashaanto kala go' ku yimaada inta hawsha doorashadu ay socoto isla markaana lagu hormariyo daahfurnaanta lagana taxadiro been abuurka dhici kara in la dhiirigeliyo doorka korjoogtaynta doorashada gudaha iyo kuwa caalamiga ah ay leeyihiin f in sanduuq lagu ridayo warqadaha codbixinta uu leeyahay lambar ka muuqan kara dushiisa
g in gudbinta natiijada doorashada la ilaaliyo badqabkeeda h in codbixintu ay noqoto qarsoodi lagana mamnuuco in telefoonka gacanta lala galo qolka codbixinta i in si joogto ah loo baahiyo jadwalka doorashada iyo horumarka laga gaaray hawsha doorashada j in guddiga fiid ee goob kasta ee codbixin uu joogi doono wakiil u xaqiijinaya ku dhaqanka habraaca k liiska guulaystayaasha natiijada doorashada oo saxiixan waxaa soo gudbinaya guddiga doorashada ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka masiid si hordhac ah waxaana shahaadada xildhibaanada bixinaya guddiga doorashada ee heer federaal habraaca doorashada iyo xildhibaanada aqalka sare ee somalilan liiska musharaxiinta aqalka sare waxaa si wada jira u soo xulaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudane mahdi maxamed guuleed qadar iyo gudoomiye cabdi xaashi cabdulaahi waxaana ka hubinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya b xildhibaanada aqalka sare ee somalilan waxaa dooranaya 46 xubnood oo ka kala imanaya 23 xubnood oo odayaasha dhaqanka somalilan 23 xubnood oo ka imanaya qaybaha kala duwan ee bulshada si waafaqsan habraacii doorashada 2016 7 howlaha la taliyaasha farsamo ee guddiga wadatashiga qaran ee golaha wadatashiga qaran la taliyaasha farsamo waxa ay xukeyn u yihiin golaha wadatashiga qaranka iyaga oo ka caawin doona arrimaha soo socda kow diyaarinta farsamo ee kulamada madaxda golaha wadatashiga qaran 2 talasiinta golaha wadatashiga qaran ee arrimaha hirgelinta heshiisyada doorashada ee 2021 3 fududeynta dhaqangalka qorshaha amniga doorashada 4 fududeynta iyo talasiinta golaha wadatashiga qaranka ee howlaha dib u heshiisiinta gobolka Gado 5 diyaarinta hanaanka lagu ilaalinayo qoondada haweenka 30% 6 talasiinta golaha wadatashiga qaran ee caqabadaha farsamo iyo dhaqaale ee la soo gudboonaada guddiyada doorashada inta ay ku guda jiraan xilgudashadooda 7 isku dabaridka dadaalada beesha caalamka ee ku aadan doorashada iyo u qariimida dhaqaalaha doorashada iyo 8 ugu dambeyntii xiriirinta dhammaan guddiyada doorashada iyo golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed